wacan oo wanaagsan daawadi halkan waa barta YouTube ee barta wararka qodobada warkayaga aad ku daawan doontaan waxa qayb ka noqonaya faahfaahin dheeraada waxa ay ka soo baxayaan dil ka dhacay magaalada caasimadda ah ee Muqdisho dabley bistoolada ku hubaysan waxa ay degmada Dharkiinley ee gobolka Banaadir ku dileen sarkaal ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed magaalada caasimadda ah ee Muqdisho maalmihii u dambeeyay waxa ku soo badanayay falalka lidiga ku ah amniga waynu idin soo gudbin doonaa daawadayaal warkayaga ayaad ku daawan doontaan qodobada kale ee warkayaga aad ku daawan doontaan waxa qayb ka noqonaya warar dheeraada oo ka soo baxaya qasaaraha laga soo tibinayo qarax ka dhacay Kismaayo Sheekh Cabdinaasir Xaaji Axmed oo ahaa wadaad daaci ah ayaa ku geeriyooday qaraxaas qasaaraha kale ee ka dhashay guud ahaan wararka ku gadaaman qaraxa ka dhacay Kismaayo ayaan daawadayaal isla eegi doonaa haddii Rabbi uu ka raali noqdo أحمد محمد إسلام أحمد مدوبي مدحوينها ماملك جبلان وحو كتعسيه دادك كل انتي قرحة كان عايك اسمايو وينو يدوسو قبين دونا مدحوينها وقت وكيد لعلي محمد عبد الله فرماجو ايا قيب كأها حبنيه كتعسيه قرحة ما انت كان عايك اسمايو داو ديال قضبادا كالي اي ورك يقعد كود داوان دونتان انونا نديسو قبين دونا وحا قيب كانو غنيا doorashada kuraas ka mid ah golaha shacabka maanta ayaa lagu doortay magaalada Kismaayo waynu isla eegi doonaa daawadayaal tirada xildhibaanada ah ee ku soo baxay doorashada ka dhacday Kismaayo ilaa iyo haatan xubnaha xildhibaanada ah ee lagu doortay Kismaayo ayaan daawadayaal isla eegi doonaa badi codadka xildhibaanada halkaas ku soo baxay cidda marka la gaaro doorashada tirsanayso waynu isla falanqayn doonaa guud ahaan wararka la xiriira arrimaha dardargelinta doorashooyinka tirada xildhibaanada ah ee ilaa iyo haatan la doortay inta dhiman maamulada soo dhameystiray deegaan doorashada labaad doorashadooda iyo kuwa ay ku harsan tahay waynu isla falanqayn doonaa si wadajir ah hadduu Rabbi uu ka raali noqdo qodobadaas iyo qodobada kale ee nagu soo kordha inta warkayaga aynu ku guda jirno ayaan daawadayaal daawan doonaa aan ku xasuusiyaa haddii aad nagu cusub tahay inaad subscribe noo saarto gambaleelka aad furato daawada si mar weliba aad u hesho wararka warbixinada xogaga iyo barnaamijyaadka gaarka ah ee aan halkaan idinku soo gudbino qaybaha hoose ee commentiga noogu reeb oraahdaada kaaga aadan wararka iyo warbixinada aan ku soo gudbinayno muuqaaladayna si share garay oo asxaabtaada la wadaag daawada ugu horeyn warkayaga aynu ku bilownay faahfaahin dheeraada ayaa waxay ka soo baxayaan dil ka dhacay gudaha magaalada caasimadda ah ee Muqdisho dabley bistoolada ku hubaysan waxa ay degmada Dharkiinley ee gobolka Banaadir ku dileen sargaal ka tirsanaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Muqdisho maalmihii u dambeeyay amnigeeda waxa uu ahaa mid baylaha marka loo eego magaalada caasimadda ah ee Muqdisho waxa ka dhacay dilal qorsheysan kuwa oo la bartilmaameedsanayo askar ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed xubno mas'uuliin ah oo ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya iyo ergada soo dooratay xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya Muqdisho waxa ka dhacay sidaas oo kale tiro qaraxyo ah tan iyo wixii ka dambeeyay 16 bishan aynu ku guda jirno kadib markii xubno ka tirsan al-shabaab ay ku soo dhiiradeen inay weerar si toos ah ugu qaadaan saldhigga degmada Kaxda deegaanka Daarusalaam Hiliwa iyo sidaas oo kale duleedka magaalada caasimadda ah ee Muqdisho waxa ku soo badanaya tan iyo wixii xilligaasi ka dambeeyay in amniga Muqdisho uu yahay mid bayla ah isla markaasna ay ku soo badanayeen arrimaha la xiriira falalka amniga lid ku ah degmooyinka waqooyiga dhaca ee magaalada caasimadda ah ee Muqdisho shacabka ku dhaqan xilliyada habeenkii ah waxa ay markaasi dhibaato ku hayo askar ku labisan dariiska ciidanka dawladda federaalka Soomaaliya kuwa oo xilliyada habeenkii ah dhac ka geysto askartaas xilliyada qaar waxa ay dilaan dadka iyaga oo markaasi dhibaatooyin dhowr ah ay ka soo yeerayaan degmooyinka dhaca waqooyiga magaalada caasimadda ah ee Muqdisho dadka reer Muqdisho xilligaani amnigooda waxa uu yahay mid baylaha marka loo eego wasiirka amniga xukuumadda federaalka Soomaaliya waxa uu ku mashquulsan yahay sidii markaas Jawhar uu kaga soo heli lahaa kursiga xildhibaanka isla markaasna mar kale uu qayb kaga noqon lahaa baarlamaanka federaalka Soomaaliya علي رعلي أو أمني قبل كبنادر كم جعونا سداس أو كله وحاو أنت بدن مشغول قليه سيد كرسي وكسو هني لها هساعته وقدام بين كرسي جيسا ما هتسناد أيام مركلا كسو بحي waxay u muuqdaan xubnihii ku magacaawna amniga magaalada Muqdisho in markaas ay ku mashquulsan yihiin sidii markaas kuraas ay ku soo dhisin lahaayeen halka qaar koodna ay raadinayaan sidii kuraas ay ku soo heli lahaayeen
warar kala duwan ayaa ka soo baxaya dil koox dabley hubaysan barqanimadii maanta ay ka geysteen qaybo ka mid ah magaalada muqdisho kaas oo loo geystay sargaal ka tirsanaa ciidanka dowladda Soomaaliya sida markaasi ila wareedyo deegaanka ah ay noo sheegeen sargaalka la toogtay ayaa waxaa lagu magacaabi jiray Cabdi Dheere wuxuuna ka tirsanaa militariga Soomaaliya iyadoo raggii dableyda ah ee dilka markaasi sargaalka ka dambeeyay ay goobta isaga baxsadeen wararka ayaa waxay sheegayaan in xilliga la dilayay marxuumka uu gaari kala soo baxayay garaash ku yaala degmada Dharkiilney ee gobolka Banaadir halkaas oo ah meesha uu dilka ka dhacay ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka ayaa sidoo kale goor dambe goobta dilka uu ka dhacay soo gaaray waxa ayna qaadeen meydka sargaalka halkaasi lagu toogtay ilaa iyo haatan ma jiro wax hadal ah oo ka soo baxay saraakiisha laamaha ammaanka iyo maamulka degmada Dharkiilney ee gobolka Banaadir ee ku aadan dilka halkaasi ka dhacay dilkan ayaa qayb ka noqonaya falal ammaan dari ah oo maalmihii la soo dhaafay sidaas oo kale siyaabo kala duwan kaga dhacay gudaha magaalada caasimadda ah ee Muqdisho si kastaba amni darrada Muqdisho waxay noqonaysaa mid sii baahayso marka loo eego xaaladda xilligani magaalada caasimadda ah ee Muqdisho ay wajahayso iyada oo amniga Muqdisho uu yahay mid baylaha ah isla markaasna ay ku soo badanayaan falalka amniga liddi ku ah markana Kismaayo iyo qarax culus oo halkaasi ka dhacay guud ahaan wararkii ugu dambeeyay ee qaraxa Kismaayo iyo sidaas oo kale qasaaraha ka dhashay ayaan daawadayaal si wada jir ah u eegi doonaa xubno uu qayb ka yahay madaxweynaha waqtigu ka idlaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ka tacsiyay dadkii ku geeriyooday qaraxa ka dhacay Kismaayo qarax laga maqlay jugtiisa inta badan xaafadaha magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose ayaa goor sii horeysa waxa uu ka dhacay halka lagu magacaabo isgoyska Somali Star oo dhacda xaafada Calanley ee magaaladaasi qaraxa ayaa waxa ka dhashay qasaare isugu jiro dhimasho iyo dhaawac waxaana la soo warinayaa inuu ahaa qaraxan mid gaarigiisa loogu xiray Sheekh Cabdinaasir Xaaji Axmed oo ka mid ahaa culimaa u diinka Soomaaliyeed oo kuwooda ugu caansan wararka ayaa intaasi ku sii daraya in Sheekh Cabdinaasir uu qaraxaasi ku geeriyooday xilli uu dhawaan ka tagay magaalada Laascaanood isaga oo magaalada Kismaayo ee maamul goboleedka Jubbaland u tagay arrimo la xiriira arrimo la xiriira faafinta diinta Islaamka ciidamo ka tirsan maamulka Jubbaland ayaa gaaray goobta qaraxa iyaga oo xiray wadooyinka ku teedsan isgoyska uu qaraxu ka dhacay waxayna bilaabeen baaris hordhac ah laamaha amniga ee magaalada Kismaayo ilaa iyo haatan kama aysan hadlin qaraxa culus oo halkaasi ka dhacay doorasho ayaa sidaas oo kale kuraasta golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ka soconaysay xilliga uu goobta qaraxa ka dhacay ammaanka magaalada Kismaayo maalmihii u dambeeyay waxa uu ahaa mid aad u xun marka la eego arrimaha dardargelinta doorashooyinka oo gudaha loo galay xubno uu qayb ka yahay madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe waxa uu ka tacsiyay dadkii ku geeriyooday qaraxa culus ee ka dhacay magaalada Kismaayo madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa ka tacsiyay geerida Sheekh Cabdinaasir Xaaji Axmed oo ku geeriyooday qarax gaarigiisa loogu xiray waxaan ka tacsiyeynayaa geerida Allaha u naxariistay walaalkeen Sheekh Cabdinaasir Xaaji Axmed oo gacan ka xaq daran ku dishay qarax miino oo gaarigiisa loogu xiray Allaha u naxariistay sheekhu waxa uu ahaa daacis si weyn u anfacay ummadda Soomaaliyeed oo dacwadda iyo sidaas oo kale qayrka ku faafin jiray guud ahaan dalka Soomaaliya isaga oo magaalada Kismaayo u yimid faafinta qayrka iyo baraarujinta bulshada si gaar ah waxaan tacsi markaasi u dirayaa ehelka qaraabada iyo saaxiibadii uu sheekha ka baxay anigoo sidaas oo kale isagana Rabbi uga rajeynayo inuu jannadii Firdawsa ka waraabiyo ayuu yiri Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe oo ka tacsiyay geerida ku timid sheekha caanka ahaa ee markaasi ku geeriyooday magaalada Kismaayo isla markaasna qarax lagula eegtay gaarigiisa madaxweynaha waqtigu ka idlaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa qayb ka ahaa xubnaha ka tacsiyay madaxweynaha muddaxileedkiisu dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ka tacsiyay isla markaasna tacsi tiiraayan la u diray intii markaas qoysaska dadkooda ay ku geeriyoodeen gaar ahaan waxa uu ka tacsiyay Sheekh Cabdinaasir Xaaji Axmed oo ku dhintay qaraxa ka dhacay magaalada Kismaayo
madaxweynaha ayaa xusay in sheekh cabdinaasir uu ahaa daacis si weyn markaasi lafdhabar ugu ahaa fidinta diinta islaamka iyo ilaalinta caqiidada suuban ee ummadda markaasi caqiidada suuban wuxuuna ummadda Soomaaliyeed sidaas oo kale uga bariyay in si wadajir ah ay ugu duceeyaan sheekha wuxuuna sidaas oo kale madaxweynuhu tilmaamay in falkaas arxan darrada ah markaasi uu sidaas oo kale ka marakacayo sida argagixisadu duulaan ugu tahay diinta islaamka iyo nolosha haldoorka Soomaaliyeed inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun waxaan ka tacsiyinayaa geerida allaha u naxariistay sheekh cabdinaasir xaaji axmed oo markaas argagixisada cadowga ah markaasi jiritaanka ummadda Soomaaliyeed ay ku dishay magaalada Kismaayo sheekh cabdinaasir waxa uu ahaa daaci si weyn markaasi uu nolosha markaasi aadanaha aad u anfacaya waxa uuna ahaa daaci fidinaya diinta islaamka madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa marxuumka alle uga baryay in hooygiisa ka yeelo jannatul firdawso wuxuuna caafimaad degdeg ah u rajeeyo culimada iyo sidaas oo kale muwaadiniinta kale ee dhaawaca uu ka soo gaaray qaraxa ka dhacay magaalada Kismaayo qaraxan waxa uu ku soo aadayaa xilli markaas Kismaayo maanta lagu doortay kuraas dhowr ah isla markaasna halkaas xilligaas ay ka soconaysa arrimaha la xiriira dardargelinta doorashooyinka baarlamaanka 11aad magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka maamulka Jubbada Hoose waxaa maanta lagu qabtay doorashada kuraas ka mid ah xubnaha golaha shacabka ee Soomaaliya ay deegaan doorashadoodu tahay Jubbaland kuraasta doorashadoodu la qabtay ayaa waxay kala yihiin hoob 72 hoob 130 hoob eber 79 hoob 112 hoob 136 waxaana ku soo baxay Cabdirashiid Maxamed Xidig oo ku guuleystay hoob eber 72 halka Mawlid Cabdi Maxamuud uu ku soo baxay kursiga tirsigiisu uu yahay hoob 130 waxaa raacsan saddex oo ku soo baxay Maxamuud Umar Kuulow oo markaasi ku soo baxay kursiga tirsigiisu uu yahay hoob eber 79 Cabduqaadir Maxamed Wacays waxa uu ku guuleystay kursiga tirsigiisu uu yahay hoob 112 sidaas oo kale Umar Yuusuf Qaladiid ayaa ku guuleystay kursiga hoob 136 xubnaha soo baxay ee uu markaasi ka mid yahay Cabdirashiid Xidig ayaa guushooda horay loo soo ogaa maadaama loo xiray kuraasta waxaana aad markaasi ugu dhow yihiin madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe doorashada ayaa haatan sii soconaysa waxaana la guda galay saddex kursi ee kale ee markaasi la qorsheynaya in maanta doorashadooda lagu qabto halkaasi maamulka Jubbaland waxa ka socota doorashada kulaasta shacabka walow wali caqabad ay ka taagan tahay deegaan doorashada labaad ee Garbaharey wuxuuna maamulka u warkacayo Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe horay u shaaciyay in doorashada aysan ku qaban karin gudaha magaaladaasi si kastaba doorashada baarlamaanka ayaa qorshuhu yahay in la soo gabagabeeyo ka hor 25 bishan February balse waxay u muuqataa in markaas doorashada aysan ku soo gabagaboobi karin halkaas waqtiga loo astiyay kadib markii maamul goboleedyada qaar aysan wali si toos ah u gudagelin doorashada deegaanka labaad oo qayb ka yahay maamulka Jubbaland oo maanta kuraas gaaraysa 6 kursi Kismaayo ku doortay wali waxa hakad ku jira kuraasta taala Jowhar oo wali aan si toos ah loo gudagelin sidaas oo kale maamul goboleedka Puntland waxa uu wadaa qorshe uu markaas deegaan doorashada labaad oo kuraasta taala Boosaaso halkaas ku soo saari lahaa madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdilaahi Dani waxa uu ku sugan yahay magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari halkaas waxa uu tagay sida 16 kursi ee taala magaaladaas uu saameyn togan ugu yeelan lahaa arrimaha ugu adag ee halkaas uu taga waxa qayb ka ah sidii wasiir Jamaal oo saaxiibo dhow yihiin madaxweynaha waqtigu ka idlaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo looga reebi lahaa xildhibaanada ka mid noqonaya baarlamaanka 11aad wasiir Jamaal waxay aad isugu dhacsan yihiin Saciid Cabdilaahi Dani waxa ay saaxiibo dhow yihiin Maxamed Cabdilaahi Farmaajo wasiir Jamaal waxay u muuqataa saaxiibtinimada Farmaajo in xilligaani uu ku waayay in kursigii baarlamaan ee uu ka soo heli lahaa magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari Saciid Cabdilaahi Dani ayaa halkaasi ku sugan waxa uu qorsheynayaa in uu bilaabo doorashada 16 ah ee taala halkaasi Saciid Dani marka uu soo gabagabeeyo doorashadaas Garowe ayuu dib ugu soo noqon doonaa qorshaha ayaa ah ku dhawaad 10 kamid ah kuraastaas in hal mar la soo dhajiyo lana dardargeliyo doorashadooda guud ahaan warkii waad kala socotay barta wararka waa naga inta waad ku mahadsantahay la socodkii la jaanqaadka warkayaga halkan waa barta wararka daawade